naagtan waxay si fudud wejigeeda u jeexi kartaa oo ay isugu bedeli kartaa qof kale mar kasta oo ay doonto. Awooddan ayay u isticmaashaa inay dadka dhex gasho si ay u ugaarsato jinka. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa ag maray nin wata weel kalluun ku jiro. Aaladii ay ku ogaan jirtay jinka ee gacanteeda ku jirtay ayaa si xoog leh u gariirtay. Jinni ayaa ku dhex jiray kalluunka dahabiga ah. Waxay markiiba raacday iyadoo wejigeeda ku qarinaysa maro, waxayna gashay isla maqaaxidii uu galay. Laakiin markii uu ninkii is yiri dalbo kalluunka, ayuu kalluunkii weelka ku jiray si lama filaan ah uga soo booday, wuxuuna isu bedelay jinni isagoo ninkii oo dhan liqay. Kadib jinnigii wuxuu u jeestay mulkiilihii maqaaxida isagoo afkiisa weyn kala qaaday si uu u liqo dhibane kale. Dhowr askari oo boolis ah ayaa isku dayay inay joojiyaan, laakiin jinnigii ayaa si degdeg ah uga adkaaday. Waqti xasaasi ah, naagtii waxay soo qabsatay miis alwaax ah, waxayna si xoog leh ugu dhufatay jinnigii. Kadibna mid kale ayay ku qabatay. Waxay isku dayaysay inay jinniga ku xirto iyadoon isticmaalin sixir. Laakiin bahalkii wuxuu si fudud u burburiyay miisaskii, wuuna soo weeraray. Naagtii kama aysan baqin, waxay qabatay carabkii jinniga weyna laaday. Markii uu ogaaday inuusan u dhigmin jinnigii, wuxuu isku dayay inuu baxsado. Naagtii waxay markiiba akhriday sixir si ay u tirtirto xusuusta dhammaan dadkii goobta joogay, wayna iska daba tagtay. Iyadoo raacaysa aaladda waxay ogaatay in jinnigii uu ku jiro qol. Qofka gudaha fadhiyay wuxuu ahaa mulkiilihii goobta, laakiin naagtu way ogeyd inuu ahaa jinnigii oo isbedelay. Jinnigii wuxuu u maleeyay inaan cidina arki doonin qaabkiisa dhabta ah, laakiin naagtu horay ayay wax walba u aragtay.